ku soo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. kulanti waxaan khiyaartana daawanaysaa qodobada aad wararkayga ku daawan doontaan waxaa kamid ah xogayaha dawladda hoose ee degmada Xingalool iyo odayaasha dhaqanka oo dawladda Puntland iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in dadkii abaartu ay saameysay ee ku nool degmada Xingalool laga caawiyo adeegyada ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka. dhalinyaro wax ka soo bartay dalka dibadiisa oo magaalada Qardho ka furtay xarun ganacsi oo lagu iibiyo adeegyada ay ka mid yihiin moobilada iyo qalabka korontada. akhbaaraadka caalamka ee warkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka oo ka wada hadlay xaaladda Suuriya. madaxweynaha dalka Venezuela oo shaaca ka qaaday inuu xirayo xadka dalkiisa uu la wadaago Brazil xilli lagu muransan yahay gargaarka bini'aadanimo ee dalkaasi la geynayo. magacaygu waa Bushra Garaasi. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan inta aynu ku guda jirno tabinta warka dunida ee warbaahinta dawladda hase ahaatee Google noo soo urtiye hilaaco galalacyadii bulshada waa guul rabbiye gadaa waxa noola siman ogo waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarketka waxaad ka helaysaa shoppingka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha tinta, shaambooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Juba ama wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Taran Oil waa shirkadda ugu weyn ee dalkeena keenta olyooyinka waxaana idin haysaa olyooyinka Fisco iyo Castrol. olyada Fisco oo loo isticmaalo gaadiidka petroolka ayaa leh quality aad u sareeya halka olyada Castrol aad u isticmaali karto gaadiidka dieselka ama naaftada. waxaana olyooyinkan soo saartay shirkadda British Petroleum oo kamid ah saddexda shirkadood ee adduunka ugu horeeya dhanka olyooyinka gaadiidka. wixii faahfaahin oo intaas dheer kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. caanaha maamila ubadkaynu dhalayniyo wax dhallaanka la siiyuu dhuuniyo dib u qaato naaska hooyo u dhaama dhaayaha lama saarin ee dhahaya aan iska dhaafay mid kala dhinac taalo naaska hooyo ku dhowo iyaga u dhigmaaye magacooda dhageyso waa caanaha maamala. xafaayadda News Living waxa idin keenay Shaafici Pharmaceutical Company sidoo kale waxa uu idin keenay weybkii carruurta oo tayadiisu ay tahay mid aad u heer sareysa. wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir Shaafici Pharmaceutical Company ambaba telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. marka la kulanto waxaan khiyaartana daawanayso ay ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. degmada Xingalool waxa ay ka mid tahay deegaanada ay saameeyeen abaarihii soo maray dalka. xogayaha dawladda hoose ee degmada Xingalool iyo odayaasha dhaqanka ayaa dawladda Puntland iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in gargaar la gaarsiiyo dadka deegaankaasi ku sugan lagana caawiyo baahiyo ay ka mid yihiin caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha. sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Xasan Dhagayare. degmada Xingalool ee gobolka Sanaag waxay ka mid tahay deegaamada ay sida aadka u saameeyeen abaarihii soo noqnoqday ee soo maray gobolada dalka. iyadoo degmada iyo tulooyinka hoos yimaada ay ku soo xiroodeen dad ay xoolihii ka dhameeyeen abaarihii soo maray gobolada dalka. waxaana xilligan abaarta ka jirta degmadaasi ay saameyn ku yeelatay dadka degmadaasi. mana jirto ilaa iyo hadda cid gacan ka geysatay sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay saameysay abaartu ee degmada Xingalool. dadkaasi oo aan haysan biyo ku filan, caafimaad, waxbarasho dhammaystiran iyo dhaqaale ay ku maarayaan noloshooda. siday warbaahinta dawladda Puntland u sheegeen xogayaha dawladda hoose ee degmada Xingalool iyo odayaasha degmadaasi oo ka codsaday hoggaanka cusub ee Puntland loo doortay inay gacan ka geystaan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ay saameysay abaartu ee degmada Xingalool iyo deegaamada hoos yimaada. insha Allah waxaanu halka baaq uga direynaa oo aan rajeynaynaa ka maamulahaan maamulka cusub ee Puntland golayaasha gobolka dhammaan meelaha ay qusayso waxaanu baaq u direynaa in ka degmahan iyo inta hoos yimaada laga warhayo ka maamulahaan oo maamul ahaan loo soo daadaajiyo hay'adaha wixii taakula dadku u baahan yahay xagga biyaha marka ka hadlo
dhowr ceel baa magaalada ahaado ceelashaas mar baa la dayactiray laakiin hadda labo ka mid waa fadhiyaan mid shaqaa ku socon doonto insha Allah wuxuu noqon doono maaqaan ceelashana saasay nooga fadhiyaan waxaan rabnaa deegaanada dayactir xilligii jilaalka lagu jiraa xilligii xoolo biyo qaban jireen baa loogu jiraa xilligii baahida biyaha ugu badnayd dad iyo duuyo baa lagu jiraa 8 magaalo oo halka hoos yimaada degmada Xingalool baahida uun tani qabto oo mayaan la qabaan mid biyood iyo mid caafimaad iyo mid waxbarasho iyo kulli dadku boqolkiiba 8 boqolkiiba 7 waxa laga yaabaa mid badan oo aan tagin oo deeqaalihi ku tagi lahaa waayay oo abaaraha iyo abaarihii hore saameyntii ku reebeen iyo kuwa hadda jira inta badan isla kaashadeen oo macnaha waxa laga yaabaa 7 qof ama 8 qof in laba qof guriga ka tagto waxbarasho ka tagto inta kale ay meelooda iska cayaarayaan oo waliyaa aan waxbarashada waayay yihiin insha Allah iyana waxaan rajeynayaa waxbarashada loo ballaariyo intaas oo ayaan ka codsaynaa hay'adaha iyo maamulkeena cusub magaalada Xingalool deegaanka Xingalool la yiraahdo wuxuu ahaa deegaan ku tiirsan iskeeda wax xoolo ku tiirsan meel xoolo ku tiirsan bay ahayd xoolihiina sidii la wada og yahay waa xoolihii waa dhamaadeen ama waaba yaraadeen wax marka baahidoodii lama hadii xoolihii maqan yihiin marna ma baahila ah way kala liidataa marka abaarta marka xilligii jilaalka ahaa waa aad iyo aad bay ugu maaragtay ugu jilicsan yihiin oo maadaama aan helin wixii ay ka heli jireen xoolaha haday biyo tahay kuwa xoolo cabaan iyo kuwa dad cabo hadii ay tahay maxaan ku raahdaa caafimaad tahay hadii ay tahay maxaan ku raahdaa dad soo xirooday oo qaxooti ahaan meel u deganaa oo cid gacan ka sugayay oo hanti marka iyagu leeyahay aan jirin waanta waxaan wixii uu maamulku ballan qaaday waan sugaynaa waana ka sugaynaa waana rajaynaynaa inuu noo qabto insha Allah madaxweyne iyo ku xigeenadiisa iyo gudoomiye waxaan idin leenahay noo dadaal wanaagsan baan idinka filaynaa saas ay ilaahay ka rajaynaynaa ta kale danta magaalada marka laga hadlo Xingalool waa meel population badan waxa ku dhow ku hareeraysan tuulooyin waliba magaalooyin waaweyn u badan oo gaaraya 20 ku dhow magaalooyinkaas iyada center u ah iyada meel caafimaad u ah waxaan rajaynaynaa magaalooyinka kale oo ku teedsan oo kamid ah oo degmada hoos yimaada in caafimaadka wax looga qabto iyagoo aan in badan lahayn iyagoo aan in badan oo biyo lahayn iyadoo aan tani dhamaystirayn waxyaalaha u leeyahay badanka waxa kamid ah biyahan meesha laga cabo riigaga biyaha laga cabaa ma aha biyo dadku noolaan karo xoolahana waana hadlayne iyagu si uu weeye oo iyagu hadda iyaga laftooda ka hadlayaan qaarka waxbarashadada ay jeclaysteen marka taa waxaan leenahay aad waxay magaalada ugu liidataa qaybta biyaha waxaan leenahay survey ceelka noo baaro oo waliba ka xoolo waa noo buuxay warbal mid cusub mid macaan loo hubiya waan uga baahanahay xasan ismaan xasan dhagari TV idaacada dawladda Puntland baran dhalinyaro wax ka soo bartay dalka dibadiisa ayaa magaalada Qardhe xarunta gobolka Karkaar waxa ay ka furteen xarun ganacsi taasoo lagu iibiyo moobilada iyo qalabka korontada sida faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Yaxya Nuur Muumin oo nooga soo roo magaalada Qardhe xarunta gobolka Karkaar cabdiraxmaan bashiir gaaleri maxamuud maxamed cali maxamed yuusuf iyo cumar cabdi cismaan oo kamid ah dhalinyaradii dhawaan soo gabagabeeyay waxbarashada heerka jaamacadeed ayaa Qardhe ka hirgeliyay hal-abuur ganacsi oo ku cusub magaalada Qardho xaruntooda ganacsi ee Heritage ayaan booqasho ku tagnay si aan u soo bandhigno fikirkooda cusub dhalinyaradan hal-abuurka ganacsi ku soo kordhiyay magaalada Qardho ayaa sida ay noo sheegeen xaruntooda ganacsi waxa laga helaa moobilada gacanta shoppingka iibinta kombiyuutarada iyo qalabka korontada dhammaan qalabka ay iibiyaan ayay siiyaan qiimo aad u jaban waana tan keentay inay dhalinyaro fara badan ku xirmaan xaruntooda oo ay dhawaan hirgeliyeen xilli ay ka adeeganayeen dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar mashquulkuna aad u badnaa ayaan booqasho ku tagnay goobtan ganacsi ee Heritage lagu magacaabo dhalinyarada sida isku tashiga ganacsigan u abuurtay ayaa noo sheegay intii waqti fara badan uga bixi lahaa raadinta shaqo inay door bideen hirgelinta ganacsigan cusub kaas oo ah fikir ku cusub dhalinyarada wax ka soo barta jaamacadaha ku yaala gudaha dalka iyo dibadda shirkadu waxay leeyahay taleefanada noocyadooda kala duwan Galaxy-yada iyo nooc walba taleefanada leeyihiin cosmetics iyo nooc walba barafoonada dumarka ragga faraantiyadii arfisooyinkii saacadihii shirkadu waxay gadaa laabtoonadii oo kuwa barooya iyo kuwa celiso duway laga keeno oo refreshment iyo shirkadan
HP iyo Lenovo iyo Toshiba shirkadaha caalamiga ah toos uga soo qaadano waxaan shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan reer Qardhood ku soo dhaweynaya shirkadda mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawaada gacmo furan baa leenahay waxaan nahay dhalinyaro reer Qardhood ah oo dalka wax ku soo bartay iyagoo aan hay'ado iyo cid kale wax la kaashan dalka shaqo entrepreneur ka sameeyay oo shaqo abuur sameeyay waxaan rajeynayaa qof walba oo dhalinyaro ah inuusan isticmaalin fikradda wadanka shaqo la'aan baa ka jira soo ogtihiin waxa laga cawdaa shaqo la'aan baa laga cawdaa oo inay CV wada markay jaamacad soo dhameeyaan ay hay'ado u bandhigtaan meelo kale u bandhigtaan ay ku timaado problem in mataqaanaa ay dhibaatooyin badan halkaas ay ka soo wajahaan oo qofku niyad jabo markaas uu qof pro noqdo runtii waxaan u hirgelinay in dhalinyartu isku daydaaniin higsi la sameeyo dalka la maalgashado wax lagala soo baxo seen ognahay dalalka hore maray waxaa jira warshado baa jira processyo badan ama programyo badan oo mataqaanaa development waaweyn baa la gaaray innaguna waxaan rabaa inaynu hiigsano oo maalinta ka dambaysa aynu samayno horumar aynu samayno si aynu ula soo bixi lahayn oo dalkeena uga faa'iidaysan lahayn hadday ganacsi noqon lahayd hadday wax soo saar noqon lahayd hadday warshado aynu ka hirgelino noqon lahayd marka taas ayaa nagu dhalisay waxaan leenahay bulshooyinka ku nool gobolka waxaan leenahay kusoo dhawaada aad iyo aad wax inay qanciyo baa ka heli doontaan intii aan ku sugnayn xaruntan ganacsi waxaa ka socday dukaamaysi mashquulkuna wuxuu ahaa mid aad u fara badan laakiin sidaasoo ay tahay waxaan ka codsanay dadka halkan ka dukaamaysanayay inay jaanisna siiyaan noogana warbixiyaan xaruntan waxyaabaha ay ka helaan waxaan ka mid ah runtii dadka aadka ugu xiran dukaankan carwadan casriga ah ugu dambeysay jaanis waxaan u yeeshay inaan ka dukaamaysto isla sidaasna waliba baha saxaafadda oo inagu soo booqato iyadoo u kurgalaysa hawsha u socota iyo customerska iyo waliba iyadoo eegaysa feedback ay dadku soo gudbinayaan bulshada reer Qardho iyo dhammaan dadka reer Puntland ba waxaan kula talinayaa runtii in ay nala soo arkaan waxa heritage magaalada Qardho u hayso waxaan caawa nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo dadka caawa ka adeeganaya oo inay ka adeegtaan u yimaaday carwada heritage electronics oo runtii baahi aad u weyn magaalada Qardho looga qabay waxaan doonayaa si gaar ah ugu mahadceliyo dhalinyartii fikirka keentay oo ismaal gelisay oo baahidii magaalada ka dhinay soo kordhisay oo wax runtii lagu booriyo oo loogu mahadceliyo aniguna caawa nasiib u yeeshay inaan imaado oo aan ka adeegto xaqiiqatan alaabtan u baahnaa oo tayo leh oo wanaagsan oo qurux badan oo modelka ugu dambeeyay ah baan ugu imaaday nasiib u yeeshay muddo ka hor telefoon aan dalbaday in liigu keeno magaaladeedii aan jooga waan aragtaa telefoonka meeshaan waan soo dhaweynaynaa waxaan u imi inaan ka dukaamaysto dhalinyaradana aan baraarujiyo maadaama dhalinyaradu niyad la soo baxday ganacsiga aad baa ugu hambalyeynayna waana soo dhaweynaynaa kismatir badan oo u sameynayna waa goobaha ganacsiga ee magaalada ugu wacan ee laga adeegtooyaan waxa weeyaan aad iyo aad baana loogu baahnaa aad baa u hambalyeynaya dhalinyaradii furatay ama soo qaabisay dhalinyarada ayara oo ma garanaysaa waqtigoodii ee garanaysaa ay waxna macnaha waxbay soo barteen waqtigoodii aan iska beerdarayn halkan ay gashteen ganacsi bay sameeyeen business bay sameeyeen maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay shacabka magaalada Qardho waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay soo waxa leeyahay dhalinyarada hore u socda horumarkan oo kale muddo la sugayay ee dhalinyaradu inay isku tashtaan oo horumar gaaraan ma garanaysaa marka aad baan u soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay wajidaan caawa halkan baan ka adeegtay yaxya nuur muumin warbaahinta dowladda Puntland magaalada Qardho gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ducaale Cabdi ayaa sheegay inay bilaabi doonaan canshuuraha gaadiidka waxaana uu baaq u diray gaadiidleyda si ay u canshuurtaan gawaaridooda sida faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Sharmaake Cabdulqaadir Daahir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Cabdi ayaa sheegay in maamulka degmada Matabaan uu dhawaan bilaabi doono qaadista canshuurta gaadiidka ka imaanaya dhanka gobolada dhexe iyo kuwa waqooyi ee soo gala magaalada isla markaasina isticmaala wadada dheer ee laamiga gudoomiye Ducaale ayaa sheegay in canshuurta maamulku uu qaadi doono in wax loogu qaban doono wadada laamiga ee burburka xoogan ka muuqanayo kuwaasi oo ay qaar khutiyactir ku sameeyeen maamulka oo kaashanaya bulshada deegaanka hal marka gaadiidley maadaama aan u sheegno in canshuur qaadin waa inay ku soo tala galaan waa inay ogaadaan waa in ay canshuurtaas ayuu ku soo tala gashan ay yimaadeen bisha 3 ayagoo ku soo tala gashan ay yimaadeen waa dadka kale oo ganacsiyaalka oo xoolaha wadooyinka kale ku keena oo ka raraya meesha waan ogsoonahay
qof kasta ha ku soo tala gasho hadduu la wado iyo hadduu ari wado iyo hadduu geel wadaba ha ku soo tala galo cashuurta inuu iska bixiyo waa mid naftoodana wax loogu qabanayo nafta ummaddana wax loogu qabanayo waay annaguna waxaan u ballan qaadaynaa inay waddooyinkii marayaan iyo dhibaatooyinkii mar walba la kulayaan in ay ka baxaan ayaan ugu ballan qaadaynaa waxaan ogsoonahay waddada buundadaas go'an 36 baabuura wax ku noqotay 6 qofoodna waxbaa ku gaari oo waa ku waxyeelowday waan ogsoonahay maalintay jabtay iyo hadda inta ka dhaxaysa 36 baabuur mid kastaba dhibkiisu hal ekaado ayaa wax ku noqotay waan ogsoonahay anugu liisaan gelinay maalin walba baabuurku wax ku gaaraba liisaan gelinay 6 qofoodna waa ku garafowday waan ogsoonahay in ugu daran tahay nin lugtiisa dhimada bawday ka go'do dhibaatadaas aad uga badbaadisay waa mid adigkana wax idin galayso ummadana wax u galayso cashuurtana aad ku soo tala galaysiin si sharciyan u qaadayna si sharci darro u mari maayo wadda baawur boono Hirshabeelle ka timid wadani ma ka qaadayna cashuur waxaan ka qaadaynaa baabuurta wadada dheer ee bari ku timaado ayaan ka qaadaynaa iyo kuwa xoolaha ka raranaya deegaanka iyo dadka ka iibsanaya xoolaha deegaanka kuwa cashuurta ka qaadaynaa kuwaas waay ha ogaadaano hana ku soo tala galaano bisha 3 12 meesha ku bilowdaan cashuurtaas waa la bilaabi doonaa haddii la ka dhigo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Cabdi Ciise ayaa bilooyin ka hor bilaabay dadaalo loogu dhisayo qaar ka mid ah buundooyinka burbursan ee ku yaala wadada laamiga ah Sharmaake Cabdullaahi Daahir raadiyaha TV-ga dowladda Puntland magaalada Beledweyne وهذا داود يالكان نجد داونسان وتيفي راديها دولة بونتلان استوديو أنا كلنا هاي مجال الجرو وعاصمة دولة بونتلان يودين كجاي معنا يا ورك الدنيا هاتنا أخبارات كعالم كان يدين كجاهيو مدحوينها دلك تركيا رجب طيب وردوغان يدقي سدلك أمريكان دونالد ترامب يا كود هالله قرشها أي حكومة واشنطن إذا ما ذا كجسار سوريا لبده هجامية وحتى تلفون كقوة حريري ayaa isku raacay in dib u soo celinta ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay tahay ay muhiim u tahay danaha labada dhinac waxaana si wada jir ay ugu nuucsadeen baahida loo qabo in la taageero geedi u socodka siyaasadeed ee wadanka ay dagaalada naafeeyeen ee Suuriya labada hogaamiye ayaa sidoo kale isku raacay in ay si wada jir ah ula dagaalamaan dhammaan kooxaha argagixisada madaxweynaha dalka Venezuela ayaa shaaca ka qaaday inuu xirayo xataa dalkiisa uu la wadaaga Brazil xilli lagu muransan yahay gargaarka bini'aadanimo ee dalkaasi la gaarsiinayo waxa uu sidoo kale sheegay in uu ka baaran dagayo in uu albaabada isugu dhufto xadka Colombia si uu uga hortago baabuurta sida gaarka ah oo uu halkaasi ka soo gudbinayo hogaamiyaha mucaaradka waxa uu sheegay in tallaabadani ay ka mid tahay qorshaha Mareykanka uu ku doonayo in uu xukunka kaga tuuro hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ayaa horkacaya kolonyo baabuur oo ka baxday magaalada caasimadda si ay xadka Colombia uga soo qaadaan gargaarka وهذا داود يالنتاس ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii dunida ka daawanaysan TV-ga raadiyaha dawladda Puntland balse intaana ka bixinadana xasuusiyo qodobadii wararkayga ugu waaweynaa xogayaha dawladda hoose degmada Xingalool iyo odayaasha dhaqanka oo dawladda Puntland iyo hay'adaha samafalka ku codsaday in dadkii abaartu ay saameysay ku nool degmada Xingalool laga caawiyo adeegyada ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka dhalinyaro wax ka soo bartay dalka dibadiisa oo magaalada Qardho ka furay xarun ganacsi oo lagu iibiyo moobilada iyo qalabka korontada madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka oo ka wada hadlay xaaladda Suuriya waatay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii dunida idinkaga imaanayay xarunta dhexaan ku leenahay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland anigoo Bishra Garaasa ayaa idin waramayay aniga iyo asxaabtii warkayga la qayb gashay dhamaantood warkan waxa xiga intaynu kulmayno waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo